Okay, kana waa tusaale kale oo ah exponent la soo qaybinayo laba number oo exponent wata oo la soo qaybinayo. Exponentiga markuu numberka wato u qaybina ay tahay waxaa la fiiriyaa basekeeda. Haddii baseku uu isku mid yahay sidii hore oo u aragteen examplada qaarkood ayaa loogu shaqeynayaa. Haddii marka uu kala duwan yahayna si gooni ayaa loo shaqeynaya. Maanta midkaan wadano waa kala gooni. Waxaan sameynaynaa marka maadaama baseku kala gooni yahay waxaan isticmaalaynaa inaad mid kasta goonidiisa ugu shaqeysid. Okay, maadaama basekan uu yahay afar kana uu laba yahay ma ahan sidii kii hore oo kale in baseka inta lasoo qaato labada hore exponent la kala jarayo. Taas ma aha, tan way ka duwan tahay. Mid kasta number kasta goonidiisa ugu shaqeysto weeye. Marka waxaan sameynaynaa maadaama basekeena uu kala duwan yahay, halkan waa afar, halkan waa labo. So waxaan soo qaadanaynaa basekeena hore oo ah afar oo la mid ah afar lagu dhiftay afar lagu dhiftay afar oo la mid ah intaasoo 64. sidaa darteed 64 inta ayaan qoranaynaa loo qaybiyey baan leenahay. kan kale ayaan soo qaadanaynaa. kan kale wuxuu la mid yahay labo lagu dhiftay labo oo la mid ah afar. sidaa darteed 64 loo qaybiyey wixii kan ka soo baxay oo ah afar waxay la mid tahay. xisaabteena weli maan ka shaqeyn, kuwan ayaan fududeynay, exponentiga ayaan ka saarnay. exponentiga marka ka saarnay saan noo soo baxday 64 marka loo qaybiyo afar waxa weeye afar. 64 marka loo qaybiyo afar waxa weeye 16. sidaa darteed jawaabteena waxa weeye 16. marka koowaad waxaa lagaaga baahan yahay exponentiga inaad kasoo saartid mid kasta oo valuegiisa soo heshid, value kusoo baxay isku qaybsid oo jawaabtaada ay noqon doontaa 16. Okay, waxaa jirta qaab kale oo sidaan ah oo u qaybinta ayaa laba nooc loo dhigaa. marna waa sida caadiga calaamadda u qaybida u dhexeysa, marna sida fraction ahaan bay u qoran tahay. Okay, haddaba aan fiirino markay fractionka u qoran tahay. wax dhib ah ma lahan ay ka duwan tahay, mid kasta sidiisa iyadoo uga shaqeynaysaa. kan kore wuxuu la mid yahay sidaan ii sheegnay, kan valuegiisa helaysaa, dan kana valuegiisa helaysaa oo exponent ka saaraysaa. kan marka wuxuu la mid yahay 5 lagu dhiftay 5 lagu dhiftay 5. kanna wuxuu la mid yahay 7 lagu dhiftay 7. sidaas ay xisaabtaan hadda la mid tahay. sidaa darteed waxaad samayn kartaa oo kuu sahlan haddii saan ay kugu adagtayna saan u qortid. saa markay tahay waad garan kartaa waxay u taagan tahay, exponent u taagan yahay oo uu yahay. kadibna waxaad samayn kartaa waad isku dhufsan kartaa. 5 lagu dhiftay 5 lagu soo dhiftay 5 waxa weeye 125. sidaa darteed 125 ayaanu qoranaynaa loo qaybiyey marka 7 marka lagu dhifto 7 waa 49. Okay, answerkeenu waa sidaan. haddii loo sii baahdo inaan sii yaryareyno waanu sii yareyn karnaa. hadda waa fraction aada u weyn. waxaan samayn karnaa waa isu qaybin karnaa sida caadiga isu qaybinta ahayd baad samaysan kartaa adigoo isticmaalaya 125 loo qaybiyey 49. wixii kusoo baxana waad sii qoran kartaa. Okay, haddaba aan jeegarayno sidaan isugu qaybin karno oo improperka aan uga dhigi karno proper fraction ama mixed fraction wixii noo soo baxaba. waxaan sameynaynaa waxaan isu qaybinaynaa 125 ba waxaan u qaybinaynaa 49. labada number ayaan labada number u qaybinaynaa. haddii u qaybsan weydo kan ayaan raadinaynaa. 49 12 marka loo qaybiyo 12 ka yar oo ma qaybsan karto, saddexdoodana isu qabana weeye. sidaa darteed numberkana siin kara marka 49 loo qayb 125 waa 2. 2 ayaanu saaranaynaa kor. 2 marka lagu dhifto 49 waa 98. 98 ayaanu ka jaraynaa. 5 iyo 8 ayaa badan lagama goyn karo. sidaa darteed waana halkan wax ka deymanaa halkan ku darnaa. hal marka halkan u geysano 15 laga jaray 8 waa 7. halkan hal ayaa noogu soo haray maadaama wax ka deysana. halkanna waa 9. 1 iyo 9 ayaa weyn kama jari karayna. halkan geysana 12 marka laga jaro 9 waa 2. xisaabteeni waxaa soo baxay intaan uma qaybsami karto. sidaa darteed waa inaan resultigeena qornaa. resultigeena wuxuu noqonayaa 2 oo ah numberka kore, kan oo noqonaya raadigii oo ah 27, kan oo weli kan loo sii qaybinayo aanan u qaybin. sidaa darteed
jawaabteena waxay noqotay sida tan halkan ku qoran oo ah mixture fracture. xisaab weligaa ha uga tegin sida tan, waa wax laga fiican yahay.